ما يا كوبا سقم صليب ويا داود الواحد اللي جوه مركن غدر إبراهيم غدر كيو فنان كعاصمة حسين إبراهيم وباس كوبا داسي جوي جوي عثمان عجيب على كي وابرايا ببرايا على مدي وابرايا بنادي كرلتي تجمل وابرايا وكان كغبتي هزارتا وبري على كل حال تمن دقمو كميدا قبل كبنادر وعايز دبريت ujeedada maamulka gobolka banaadir uu tartanka u qabtay waxay ahayd in degmooyinka isdhexgalka bulshada isla markaana dhalinyarada oo aad iyo aad u jecel cayaaraha u jecel horumarka dalkooda u jecel midnimadooda iyo wadajirkooda inay halkan isugu yimaadaan muddadaas iyada ah waxaan rabaa inaan hortaada ugu mahadceliyo dhammaan cid kasta oo kaalin ka soo qaadatay ha noqoto wasaaradda dhalinyarada isboortiga ha noqoto maamulka gobolka banaadir ha noqoto xiriirka kubadda cagta ha noqoto dhalinyarada degmooyinka ee tartanka qaybgelayay oo cayaar wanaag muujiyey ha noqoto warbaahinta oo kaalin mugla ka qaadatay sidii quruxda caasimadda iyo tartankan iyo horumarka ka jira dalkaba loo soo bandhigi lahaa sidoo kale dhalinyarada aad u jeedo waxay muddadaas bilka ah ku jireen tabaabusho diyaargarow waxayna muujiyeen cayaar wanaag isxilqaan iyo sida ay u jecel yihiin inay isdhex galaan dalkooda horumarkiisana u tusaan mudane madaxweyne caawa joogistaada waxay noo tahay sharaf iyo karaamo waxaan jeclaan lahayn laba kalma inaad tiraahdo inta aan koob kala dhigin mudane madaxweyne ku soo dhawow caawa waxay noo tahay sharaf inaan kala soo qayb galno tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka banaadir oo caawa ku soo gabagaboobay istaadium muqdisho waxaan aad iyo aad oo kale ugu faraxsanahay inay caawa koob ka qaadatay degmada waaberi degmada shibisa waa guulaysatay degmada hodanna waa guulaysatay kulli degmooyinku waa guulaysteen maxaa yeelay waxay muujiyeen in magaalada muqdisho ay nabad tahay oo lagu cayaari karo runtii waxay u soo jiideen magaalada muqdisho inay tahay magaalo nabada magaalo fiican magaalo isdhexgal leh insha allah sanad soo socdana sidaan si ka fiican ilaahay ha nooga dhigo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu